السلام الله عليكم الكستو الدنيا ذاك جوجتان ولكن درس حسن محمد بيج كايغا داونيسا درس قصو بيج اوفيشيال sidoo kale waxaad igala socon kartaa kanaalkayga YouTube-ka ee درس قصو channel official muuqaalka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa wiil yar oo hooyadii keligii ka haysato hase ahaatee aana waxba maqlin ilaa uu marka dambe shilka galo muuqaaladan oo kale si aan u soo badiyo fadlan igu dhiirigeli oo page-kayga like saar sidoo kalena qaybta YouTube-ka aan ku leeyahay subscribe saaro gambaleelkana furo waayo waxay ka caawin kartaa si aad ula socotid qisooyinka xiisaha badan ee soo geliyo mahadsanid qisadani waxay ku bilaamaysaa sida tan hooyadani waxay ahayd mid hal cunug dhashay hase ahaatee ku soo dadaashay wiilkeega kuna soo tiriya tacabeeshay subax kastana waxa u diyaarisaa quraacyada oo mar kastaba ka fikirta qaabka nololeedka uu u nool yahay marka ay quraacda u diyaariso waxa ay isku daydaa bal inay waxoogaa sugto cabaar ah marka ay sugto runtii ma yimaado oo uu iska hurdaa marka uu soo tooso ayay ku dhahdaa hooyo quraac ayaan kuu sameeyey oo saakuleyn ayaan ku sugayey ee waata kijada taalla ee quraaco ama madbaxa qof kastaaba siduu yaqaano inankan dhalinyarada ah runtii kama dhaadhacsana hooyadii waxaan iyo diyaarintan ay u diyaarinayso subax kaste una ku xanaaqaa oo waxa uu yiraahdaa subax kaste hurdada ayaad iga qastaa oo waad ii timaadaa oo ku quraaco ayaad igu dishaa quraacdaada mana rabo ee waan iska tegayaa oo meehi mid quraacdaada cunaya oo runtii qaylo ayuu ku bilaabayaa hooyadii runtii way ka guraysaa hadalka oo wax jawaaba maba siisaba laakiin hooyo waa beer oo marnaba waanadiisa kama daasho habeenkii marka ay hurdo cabaar ayay isdhahdaa waa kan aana hurdine maxaa ku dhacay wayna u imaanaysaa oo waxay leedahay hooyo waa xilli dambe oo waan hurdo dhammaystay adiguna weli kombiyuutarka ayaa dul fadhida ee iskaga soo kac oo hooyo iska seexo iyadoo si naxariis leh ula hadlaysa isaguna wuxuu ugu jawaabayaa maya ma seexanayo ee adiga haddii hurda ku hayso orod oo iska seexo iyada oo ku leh hooyo in badan ayaaban hurday oo hadda salaadii subax ayaa dhow ee iskaga kac kombiyuutarkan aad dul fadhidid oo orod yara seexo waagiiba wuu baryee si aad berri toolana iskuulkaaga ugu kalaadid kamana aqbalo waanooyinkan maalin iyada oo u diyaarisay dhalashadiisa keeg ama doolshe qof kastaaba siduu yaqaano hooyadana mar kaste dhalashadiisa waxa u diyaarisaa waxyaabo noocan oo kale ah hase ahaatee maaha mid yimaada inankan yari ee wuxuu iskaga maqan yahay bannaanka hooyadii iyadoo sugaysa inankeegii nasiib darro manuuna imaan oo waxa ku dhacay shil gaadhi ayuu galay oo dhaqso ayaa loogu qaaday ambalaas si loo geeyo gargaarka ama qaybta caafimaadka loona daweeyo muddo kadibna waxaa lala soo hadlay hooyadii loona sheegay inuu wiilkeegii shil galay iyadoona yaaban oo leh waa kii saaka kaa baxay isaga oo nabad qaba ee balaayadani xaggee idinka timid waayo waxay ka naxdaa dunida isaga keligii oo way koolkoolisaa kadib waxay u ordaysaa dhakhtarkii waxayna arkaysaa wiilkeegii oo madaxa ka soo gaadhay dhaawac maadaama shilka gaadhi uu galay waxayna ku dhahday hooyo meeqa jeer ayaan kula taliyey oon kugu dhahay markaad gaadhiga wadid aayar u wad runtii inankii wuxuu noqday mid ka soo waantooba dhibaatooyinkan iyo rafaadkan uu hooyadii ku waday iyo waxyaabahan uuna ka qaadanayn hooyadii shilkii markii uu galay waxa uu noqday mid yar oo wanaagsan oo hooyadii mar kastaba ku yidhaahdaa hooyo waan khaldamay ee iga raalli noqo hooyaduna mar kasta waxay ku dhahdaa wiilkaygiiyow haddaad waanooyinkayga qaadan lahayd maanad gasheen shilkan inkastoo qadar ilaahay tahay haddana qofku markuu qalqaali yahay
uuna waxba ka qaadanayn waalidkii dhibaatooyinka noocan oo kale ah way soo gaadhaa. waayo alla subxaana wa tacaala wuxuu kugu yidhi meel baydhsan seexo aan ku badbaadiye. waayo haddaad dhahdid tareenkaa ayaan isku dhigayaa waanan badbaadayaa, lagama yaabo ina aad badbaadid. laakiin haddaad ka durugtid tareenka laga yaabaa amar ilaahay mooye inuu ilaahay kaa badbaadiyo. hooyadiina wiilkeygii waxa ay keentay gurigii sidii horena wuu ka wanaagsanaaday oo waxuu noqday mid waanadeeda qaata shilka kadib. haddana waxa ay noqdeen laba faamila oo isku faraxsan oo hooyadani cid kalama kaba naxdo aana inankan ahayn. inankana ilaahay ayaa u soo hadiyey oo uga dhigay shilkii uu galay tusaale. fadlan ka faa'iidayso talooyinka waalidka oo marnaba ha noqon waalid caasi. muuqaalkani hadduu yahay mid dareenkaaga taabtay fadlan sheer dheh oo asxaabtaada gaarsii. mahadsanid.